السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa inaan ka hadlo cudurka macaanka dadka Soomaalida aad buu ugu soo farabatay. cudurka macaanka waxaa loo kala qeybaa laba nooc oo kala ah nooca koowaad iyo nooca labaad. nooca koowaad wuxuu ku badan yahay dadka 40 sano ka yar, nooca labaad wuxuu ku badan yahay dadka 40 sano ka badan. cudurkan koowaad waxaa sababa in difaaca jirkeena uu burburiyo unugyada ganaceena. sidoo buu difaaca jirkeena ku burburinayaa unugyada ganaceena wuxuu ku burburinayaa asigoo difaaca jirkeena isla fayraska burburi ay wuxuu si qaldan u burburinayaa unugyada kala ganaceena. talo unugyada ganaceena muxuu hayaan unugyada ganaceena waxay soo deeyaan dhacaankaas maxaa loo yaqaanaa insulinta waxay noo suurtagelisaa in jirkeena uu isticmaalo sokorta. haddii jirkeena uu sokorta isticmaalna anagana aan ka helna tamar. haddii unugyada ganaca ay soo deynin dhacaanka ama uu yiraahdo waxay ka dhigan tahay in sokorta aan isticmaalin ay xididada ku badato oo loo yaqaano macaanka. waxa labaad ee sababo nooca koowaad ee dhalinyarada u badan tahay waxa ah in ay ugu soo gaarto dhaxaltooy ahaan in ay ugu dhacdo iyo cudurrada qaarkood ay sababto bakteeriyada iyo waxaas dhammaan waxaas waxay sababi karaan in qayb uu qaado qofka cudurka macaanka nooca koowaad. nooca labaad ay dadku badan yihiin 95% kamid ah waxay qabaan nooca labaad, 5 kale kamid ah waxay qabaan nooca koowaad. marka nooca labaad maxaa sababa? nooca labaad waxa ugu weyn ee sababa waxa waaye qofka inuu cayilin yahay ama uu miisaankiisu badan yahay. haddii uu miisaankaaga badan yahay waxaa halis ugu jirtaa inuu kugu dhaco nooca labaad ee macaanka. iyo waxyaabaha kala sababi karo waxaa kamid ah qofka inuusan sameynin wax exercise ah oo guri iska fadhiyo ama gaari uu qaato oo ku tago shaqadiisa shaqada qabow oo ku shaqeeyo and then haddana gaarigiilo oo kusoo laabto oo guriga imaado. dadkaas ayaa u badan cudurka macaanka. calaamadaha lagu garto sidee baa ku garan kartaa qofka cudurka macaanka qabo? haddaa isku aragto calaamadahan soo socdo waxaa laga yaabaa inaad qabto cudurka macaanka. fadlan la xiriir dhakhtar ama tag goob caafimaad. maxaa kamid ah? waxaa kamid ah qofka inuu isku arko kaadi fara badan ama inuu musqusha ku laalaabanayo oo asigoo u laalaabanayo inuu soo kaadiyo. waxa kale oo isku arko waxaa kamid ah inuu biyo badan cabo. sababtoo biyo badan oo cabaya waxay tahay kaadidaas fara badan ee jirka baxaya jirku oomayaa biyo fara badan kaadida raacayo marka qofku wuxuu cabayaa biyo badan. inay badato cunto cunistiisa qofka oo cudurka macaanka qabo waxaa laga yaabaa subaxdii in loo mar quraacdo, qadada in loo mar qadeeyo, habeenkii in loo mar casheeyo. macnaha baahi aad fara badan ayaa qabanaysa qofkaas. dhammaan calaamadahaas iyo waxaa kale lagu arkaa qofka in uu dhaco miisaankiisa ama uu caatoobo hadduu qabo cudurka macaanka qaybta koowaad. dadka cayilina waxaa u badanaan dhahay qaybta labaad. dhammaan calaamadahaas waxaa ku arki kartaa dadka qabo cudurka macaanka. iyo qofka haddii cudurka macaanka uu iska daawey waayo ama oo macnaha oo isku daayo waxyaabaha dhibaatada ugu waaweyn ee ku imaan karta maxaa kamid ah inuu qofku wadna xanuun in sokorta ay dhaawacdo maskaxda oo ah qofka inay stroke ku sababto. iyo waxyaabaha kale oo arko waxaa kamid ah kaliyaha inay disho oo qofka keliyada ay shaqay weyso oo hadhow marka dhakhtar u tago laho cudurka macaanka hadaa qabtay waa inaa cudurka macaanka inaa iska daaweysay ahayd saa inaa isku daysama ahayn. haddii keliyahaaga dileen macnaha waxaa u baahan tahay in keliyahaaga la dhaqo. dhaqid la-aan ma noolaan kartid. waa in macnaha oo qofka dialysis mar walba u baahdo. dhammaan dhibaatooyinkaas iyo dhibaatooyin kale isha indhaha ku dhacdo waxaa u sabab ah cudurka macaanka. iyo hal dhibaato oo hadda Soomaalida ay kusoo farabadatay oo loo yaqaano in lugaha ama gacmaha ay nabar uga soo baxo. nabarkaas aan bogsonayn waxa ugu weyn ee sababuna waxa waaye sokorta ama macaanka ama qofka sokorta aan iska controlin. haddaan sokorta iska controlin dhibaatada kale ee ugu weysan kartaa waxaa kamid ah in dareemayaasha gacmahaaga iyo dareemayaasha lugahaaga ay dilaan. haddii dareemayaasha lugahaaga ay dhintaan waxay ka dhigan tahay inaadan dareemin wax xanuun ah. haddaadan wax xanuuna dareemin waxa uu nugashahay wax jug walba kugu dhacda ama wax walba ku saro inaadan ka warhaynin oo dhiig iska baxo oo dan meesha infection qaato oo mar dambe aad aragto oo dan nabarku bogso waayo. marka dhammaan waxyaabahaas waxa sababay waa cudurka macaanka. fadlan bulshada Soomaaliyeed la wadaag ama deriskaaga la wadaag. haddaad qalaad tahay qof aqoon leh fadlan u sheeg dadka aqoonta yar ee kugu sugan ama xaafada kula joogo ama deris kula ah ama degmadaas kula joogo.
dadka sokorta qabo dhibaatooyinka fara badan waxay ku timaadaa lugta sababtoo ah dareenka ma lahan dhibaatooyin waxaa jirta aan la arkaynin oo qofku u maleeyo inay meesha caadi tahay laakiin uu ka dhimanayso muxuu ahaa gudaha waxaad arkaysaa haddaad xirato kabo ciriiri kuga ah in lugtaada ama sulkaaga meel ka mid ah in meeshaan ay yeelato waxyaaba caddaad ah and then waxyaabahan caddaadka ah ujeedo oo adag inaa isdhahdo waxaan waa caadi laakiin ha iloowin in lugtaada ama sulkaaga ay leedahay laf waa kani waa lafti okay lugta waxaa laga yaabaa macnaha sulku waxay leedahay laf marka dhibaatada waxay ka timaadaa kabih ciriiriya markaa gashato inta waxaa ku jiro marka murqo ama seedo iyo waxyaabo oo ka kooban jirkeena then qofka hadduu wax kabih ciriiri gashto waxaan caddaadka ujeedo aayaseyso wuxuu riixayaa seliskan ama unugyadan waxay udhexaysaa waxa caddaadkan oo adag iyo waxay udhexaysaa lafta markay unugyadan la riixo way dhimanayaan markay dhintaan dhibaatada waxay gaaraysaa lafaha lafta markay gaarto qofku intaas kamuurhayo xanuuma dareemayo ilaan wuxuu qabaa sokortiisana ma uusan controlin and then dhibaatada markay lafta ku faafto ayaa waxaa la arkayaa qofka in sulkiisa ay madoobaatay intaan ay noqotay madow markaasaa waxaa loo geenaya dhaktar markaas waxaa lalahaa macnaha qofkaas sokortiisa ma uusan controlin marka sulkan waa in la jaro marka qofka waxaa lalahaa sulka ha laga jaro haye sulka waa la jaray waxaa soo haray 4 farood oo lugtay ka koobneed saana noqoto lugti qofka haddana soomaalida waa taqaanaa ama waxa ka qaldanay haddana sidoo kale isla waxaa haddana farti haddana saan ku dhacaa farti kale ama fariireedoo kale sidii haddana waxaa leeyahay haddana qaybta hala jaro lugta waxaa kasoo hartay haaf hala jaro haddana hala jaro marka dhibaatooyinkan oo jeedaa oo soomaalida ku batay muxuu ahaa ma rabtaa inaad ka hortagto haddii aad rabto inaad ka hortagto number 1 control sokortaada soo gado saacad sokorta control 2 waxaa sameysaa aalminto samee 3 daawooyinka sida loogu talagalay u qaado 4 gasho kaba waafi ah 5 ha socon kaba la-aan 6 waxa ugu muhiimsan aad sameynaysaa waxay tahay iska hubi intaadan gashan kabaha sababta iskaga hubinaysa waxaa laga yaabaa macnaha kabta gurigii waxaa kula jooga ilmo marka waxaa laga yaabaa kabta inay dhagaxaan ku galshaan ama in kabaha ay ku jiraan cayaankan nool aa ujeedo haddii adoon kabaha iska hubin haddaa lugtaada geliso waxaa laga yaabaa in cayaankan ay cunaan lugtaada ama qayb ka mid ah ay goostaan then qofka uu markuu shaqada ka yimaado 24 saac ama 12 saac kadib uusan cagiisa uusan ka warheynin dhibaato fara badan ay ku taal ama dhagax ilmaha ay u galshaano compression maal kabaha iyo inta lugta u dhaxayso dhagaxa ku jiro dhagaxaas wuxuu compression ku sameynayaa wuxuu ahaa jirkaaga and then markuu compression ku sameeyo meeshaas waxaa ka dhalanayo nabar number 7 waxaa sameynaysaa gado kabaha loogu talagalay dadka sokorta qaba okay dhammaan intaan haddaad rabto inaad ka badbaado in lugaha lagaa jaro ama in gacanta lagaa jaro in haddaad rabto inaad ka badbaado aad qabno cudurka sokorta fadlan ku dhaqan intaan haddaa intaan ku dhaqanto waxaad la mid noqonaysaa dadka aan sokorta qabin laakiin intaan haddaadan ku dhaqmin waxay ka dhigan tahay in naftaada aadan controlin haddaadan naftaada controlin waxay ka dhigan tahay inaad naftaada u horseeto halis waa mahadsantihiin la wadaaga asxaabtiina